koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesho xubinta kalamaan maalin walba fadlan sabscribe sar page-kan Dulmidiid Media. waryaada reer kalamaan bini aadanka nooli taariikhda soo marta waxbuu ka bartaa soomaalida waxaa la ogaaday madaxdeedu wixii la soo maray ma oga bulshadeeduna wixii la soo maray ma oga oo waa qabaarmoog cadceebdii soo baxday la macaambisha marka maalmahan waxaan maqlayaa hadalla aan 90kii maqli jiray hadalla weeg nin cabdullaahi dheere la yidhaaha shalay shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi waxaan ahay afhayeenka kacdoonka muqdisho dadkuna waa inay kacaan marka waxaan la yaabana haddii la kaco xaggee la degayaa warnimayow hata ka hor intii la kahiya eelashi la degi warnimayow haddaan la kicin maxaaladda jirtaa loo fadhi karaa war shacabka suudaan intay kaceen xawadka dhulka loo dhigay war balay lala kaco dalkan kala jirtee dadka fidnadooda ha joojiyaan war waxaa la yidhi tilaan baa dee joogta ayaa roobka dul da'ay kadibna cirkay fiiriso dhinac walba in roobka ka soo socday aragtay markaase waxay tidhi udub islaan abaarku ma midno marka ninka dhahaya balaaye ma jidho maanta muufadiis ayaa isaga maraq ku jirto waradda ka hor abwaan ku halqabsaday wadaaddaa roobka u da'ay wuxuu yidhi islaantii dusheedii daruuruhu ku hooreen dadku wada helmoodoo daad wararac bay tidhi marka ninkaan isgoysaa u xidhane warkiisa ka gudba awalaan yaabaya magaaladan kontoqotoka maalin kasta loogu dhimanayo ninka yidhi dhibka ma jiro war mas-uul dawladeed miyaad ka sugaysa inuu dhib kuu sheego war dhibka haddaan dawladdu sheegin annagaan sheegayne waxaa la yidhi adigoo muwaadina haddii lagu xushmayn waayo oo qaraxyo kaa nixiye iyo jidad lagaa gooyey iyo lacag lagaa qaaday iyo warisu kaa raaco xaq waxaad u leedahay inaad gadato toorreeye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin markhaati ka ahaada ninkaasu inuu toorrey gadanayo anigaa sheegaysaad u leedahay waxaan u malaynayaa inaad xabsiga ka dhex sheekay doontid war ninka dukaankii gaalkacay ee faxa iska celiya laga soo xiray muqdisho rabaa inuu toorrey ka gato war xabsigu ma kan cusuba mase waa kii hore dagaalanning ilaami maylay ka dhiman talbeeri waay haanasa ka dhiman ma dagaalanning ilaami lankun war waxaa la yidhi dagaalka dan baa keenta damac iyo duruuftiiyo markii diiftu soo badato daacaduna yaraataa ummadi dan isu laysaaye waa shay duruuriya inay taa ku dirirtaa war dagaalka shabaab danu ma keenine dulmiyaa wada dariiqyadaba dulmi baad shacabka uga xirtay shabaabka waad soo daysaa war niyo barigii hore waxaan maqli jiray warkan BBC-du ma sheegtay warriwaaniya BBC-dan warkeeda iga daciyaala laga adeejiyey war maanta ugu darreydana dhegaysanayow waxay yidhaahdeen dumarka taqaarka hore u weyn iyo taqaarka dambe u weyn teebaa fiican waana wax la yaab ah ciwaan kalena waxay ku soo qoreen arooska maxaa subaxii sariirta loo eega iminka waxay soo qoreen akhrisanayaa cudurkii loola jira aboole alamjare soo dhaaf marka maanta wixii ka dambeeya waa BBC Somali Children dareenka galo dareenkaad sheegtay ma ay horto war anaa kuu fasiraya af Soomaali waxay ku noqonaysaa barbaradka carruurta Soomaaliyeed tilaftiraha laanta af Soomaaliga BBC-du wuxuu yiri dadka Soomaaliyeed waxa aan qorayno waa la yaaban yihiin laakiin ayaga la qabsan doona anuna waxaan kula talinayaa wararka la faafiyo iyo wararka aan la faafin ha kala barteen wadama wariyaasha Soomaalida maanta jira siinkiyo saadkaba ma kala saar karaan warwariyaashu waxa u roon iyo waxa u daran minoo kala garanayaan maalin meeshii qorxo ka dhacay niman askara ku xanaaqo qor liifkiis ku garaacay wariyaashii kadibna taliyaha booliska qaybta wayacad ee Cabdifataax Bashiir ayaa yiri war saxaafadu Soomaaliya kuwan amnigooda sugan ka mid yihiin hal laga leexdo kadibna waxaan aragnay wariyaashii kala garan waayay kii difaacay iyo kii la diriray oo wixii dhan safka maray war korneyl Cabdifataax Bashiir ka mid ma ahan cimaamad leedii hore waxa ku dhacday isxaan hasamay sharikuuma timaade war bakasi ma biyadu la jeeda warnimayo war ma haysiin ra'iisul wasaaraha galmudug Dr. Sheekh Shaakir wuxuu sheegay ragii duleedka dhuusamareeb dadka shacabka ku dilay in gacanta lagu soo dhigay gaalkacyo kuwii shacabka ku laayana qaarna waa la soo qabtay qaarna waa la daba joogaa la yiri war Dr. Shaakir cadaaladii hadda ka hor maxkamadda guryaha ka
dhacday kama rabnaa cadaalad saxan ka rabnaa warnimaya wal isbaradi koonfur galbeed inoo galmudug ka faylatana la ogaadi madawiine lafta gareen may beerey dadka galmudug ka jeedano koonfur galbeed roogan lantirrik narko deymuhu nahday kor ma jirori anina may farin andirey haansho abnisho lusugi haani dhiisho deediyeen may la ka faday haani deediyeen inoo birta ka asalan war magaca galmudugba hore u yiraahdeen galmudugna waa koonfur galbeedna waa galmudug marka dad wax ma garataa waxay sameeyeen galmudug oo dhan ha ku eedo waa lagu daba jiraa sida la sheegay ay bileesh biroos adiga day buuba wala koofadee waa la eri widay war ma haysaane isud bagad wuxuu yiri daladweyne hirshabelle kamid ma aha waarane warka qaadanayno war waara iyo nabad iyo nololayaanta waa isku fiicnaayeen dabageediyu garab ka haysta war hadda kormay ba dheega jiray webaga balwad wiina ama harada soo walaaqaydo Soomaalida ay ku xumeynayda hatireed may ba ka dheey kuriya anti gabar musaafaysidii webaga ka gudbiyeeriyo lamada buunta aragaaw kadambana gabarti biya ka dharagday webaga ka dhaxdimati hataa jaalkiin ka hore webaga ka dhimaday baladweyne ka dhii may ka faylahay tareed inoo isgaad webigi qaadayo asaa weheshanaye dhenined warnimayo horta raggu kala nasiib badan ninna bajaajtan soo fuul baa laga diidaya ninna webigaa lala dabaalanaya war ma haysiine beriir mid loola yaabo ayaa ka dhacday buundidii la dhisay war buunda lagu dhisi maayo bugtaa ku badan na dhegayso shabaabka miinooyin aasayo ayaga ayay ku qarxadeen hadda miinooyin waxaa la yidhi ninkii qaldaa mar dambe ma qaldo war jasiirada laamuba hadda ka hor may leeray iyo wameelka duulayaan ka garaxdi war wadaad xarakada u fadwooda wuxuu yidhi miinooyinka mujaahidiinta ku qarxay waa murtadiin warniyo war ma haysaane Soomaaliland baa mid lala yaabo ay ka dhacday ceerigaabo agteeda ayaa waxa laga taagay qoladan jaarkana calankooda markaas rasaas inta huulay ayaa 6 qof ku dhaawacnay war dadka maxaad ku disheen calanka 60 kiiba Hargeysa laga taagay war Hargeysa waxa la soo daayay waa xildhibaan dhakool waxaan lagu xiro oo markii hore oo yiri waxaanu dawlad maahan waa jabhad war imika waxa lagu celiyo hadduu qaranka Soomaaliland ba jabhad ku sheegay oo xabsiga linta ku cabay war waa runtiisu esana ma wax war adeero halkan kan kaayada soo cabnay meey war taas igaala ka jawaabay yiri ku kaayada saacsiyan annaga hadda idin madax war wax waalan baa tiin noo ka wada waxa suwar maahan waa idin leeyahay annaga weeye annaga ka tabe war insha Allah war insha Allah war insha Allah war